bilowgii waxaa jiray ereyga, ereyguna wuxuu la jiray ilaah, ereyguna wuxuu ahaa ilaah. isagu ilaah buu la jiray bilowgii. wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis. isaga waxaa u jirtay nolol, noloshuna waxay ahayd nuurka dadka. nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurkana kama badin. waxaa jira nin xagga ilaah laga soo diray, magaciisuna wuxuu ahaa yooxana. isagu wuxuu u yimid markhaati furid, inuu u marag furo nuurka, inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan. isagu nuurka ma uu ahayn, laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo. kaasu wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada. wuxuu ku jiray dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo duniduna ma ay garanayn isaga. wuxuu u yimid kuwiisiina ma ay aqbalin isaga. laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan. kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay, oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama dad doonistiis, laakiin waxay ka dhasheen ilaah. ereyguna jidh buu noqday, oo waa inaan dhex joogin, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taasoo ahayd ammaantii u ekayd tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo ruug ka buuxa. yooxana waa u marag furay isaga, wuxuuna ku qayliyey oo yidhi, kanu waa kii aan idhi kan iga daba imanaya waa iga horreeyey, waayo hortay buu jiray. dhammaanteen waxaynu buuxnaantiisa ka hellay nimco ka nimco, waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay muuse, laakiinse nimcada iyo runta waxay u yimaadeen ciise masiix. ninna ma arkin ilaah marnaba, wiilka keliya oo laabta aabbaha ku jira, kaasaa inoo sheegay. kanu waa maraggii yooxana furay markii yuhuuddu jeruusaleem uga soo direen wadaaddo iyo kuwa reer laawi ah inay weydiiyaan oo ku yidhaahdaan, yaa tahay? isagu waa qirtay, mana uu inkirin, oo wuxuu qirtay oo yidhi, anigu ma ihi masiixa. markaasay weydiiyeen, haddaba yaa tahay? ma eliyaas baa tahay? wuxuuna yidhi, ma ihi. ma nebigii baa tahay? wuxuuna ku jawaabay, maya. waxay haddaba ku yidhaahdeen, yaa tahay? si aannu jawaab ugu celinno kuwiina soo diray, yaad isku sheegaysaa? wuxuu yidhi, waxaan ahay codka kan cidlada kaga qaylinaya, jidka rabbiga toosiya. siduu nebi isayaas u yidhi, kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen farrisiinta. markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, haddaba maxaad dadku baabtistaa haddaanad ahayn masiixa ama eliyaas ama nebigii? yooxana wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi, anigu waxaan dadka ku baabtiisaa biyo, laakiin dhexdiina waxaa jooga mid aadan garanaynin, oo ah kan iga daba imanaya, kan aanan istaahilin inaan yeelmaha kabtiisa furo. waxyaalahaas waxay ka dhaceen baytaniya, taasoo ku taal webi urdun shishadiisa, oo ahayd meeshii yooxana dadka ku baabtiisayey. maalintii labaad yooxana wuxuu arkay ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, bal eega wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya. kanu waa kii aan idhi waxa iga daba imanaya nin iga horreeyey, waayo hortay buu jiray. anigu ma aan aqoonin isaga, laakiin inuu israa'iil u soo muuqdo. sidaa daraaddeed ayaan u imid anigoo dadka biyo ku baabtiisa. yooxana waa marag furay isagoo leh, waxaan arkay ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoolley oo kale, wuuna dul joogsaday isagii. anigu ma aan aqoonin isaga, laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku baabtiiso wuxuu igu yidhi, kii aad ku aragtid ruuxa oo ku soo degaya oo ku dul joogsanaya, kaasu waa kan dadka ku baabtiisa ruuxa quduuska ah. anigu waan arkay, waana u marag